بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما خميسة أو جمعة أي سوق ليسو سجال بشا أكتوبر سنة كلا بكون لباتن يشان أو كوبعجن صد تضبية تمن بشا ربيع الثاني سنة كن أفر بغلا فرتنية تضبع تاريخ ذي هجرية كسور هذا مركله يبرامج كي قبارها قضبضة عاو برامج كأن إذا كوجها إننا وحا كمذا وإسرائيل أو بلوضيه إن دبابات كذا دجالك يعقف يديده أي كرب حضو قيبة كمذا بريكا غزة تاس أو قيب كاهر جرينتا حبت جوجنتا يسلاف سيغا محابيستا حماس أو إسلام مركبة بلوضيه إن أي لوريكتو goobaha ciidanku ay ka baxeen iyagoo bilaabay in ay dib isku qaabeeyaan waxaana meesha ay ka saartay Xamaas in ay hubka dhigayso laakiin iyadoo laga wada hadlayo nabad iyo rasaas joojin goor dhaweyd duqeyn dhimasho dhaawac sababtay ayay Israa'iil ka geysatay jida Gaza Trump oo ku andacoonaya in la soo afjaray dagaalkii Gaza xafladda saxiixana oo ka qayb gali doono maalmo gudahood dalka Suudaanta Koonfureed ku dhawaad 20 askari oo dhimasho dhaawac uu ka soo gaaray dagaal ka dhashay jacayl loo qaaday haweeney madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo si cad u taageeray mowqifka Iran ee xiisadda nuclear-ka ee u dhaxaysa Tehran iyo reer galbeedka sheekada ugu dambeysay barnaamijkan idin kugu hayaana waxay ku aadan tahay adduunyada waxa la arki jiray kareeco la buufiyo oo la dagaalamo laakiin caan waxaan idin hayaa warshadii ugu weyneed ee soo saartay kareecada oo la furay xagee arintani ka jirta maxay tahay sababta kareecadan loo abuurayo sheekada la yaab leh ayaan idin kaga haynaa qodobkaasi dhamaan wararkan iyo waliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idin kugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada marka la daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dalkaasi Suudaanta Koonfureed oo ay ka dhacday arrin la yaab leh kadib markii ciidamo ka wada tirsan dowladda waddankaasi ay israsaaseeyeen halkaas dhimasho dhaawac ayaa ka dhalatay haddaba wararkii ugu dambeeyay ee Moortan ugu yaran 14 askari ayaa la dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay kadib markii dagaal uu ka dhex qarxay laba sarkaal oo isku haya arrin haweeney la xiriirta sida uu sheegay afayeenka ciidanka dalkaasi dagaalka ayaa ka dhacay suuq u dhow gobolka shidaalka hodanka ku ah ee Abyei oo ku yaal xadka u dhaxeeya Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed waxaana u dhex maray xubno ka tirsan ciidamada isku dhafka ah ee ilaalada madaxtooyada kuwa si uu isugu jira ciidamada dawladda iyo kuwa hogaamiyaha mucaaradka afayeenka militariga Lul Roy Kawangi ayaa sheegay in dagaalka uu u dhaxeeyay sarkaal daacad u ah madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir iyo sarkaal kale oo isna daacad u ah ninka lagu magacaabo Riek Machar oo ah madaxweyne ku-xigeenkiisii laakiin hadda xabsi guri ku jira Kawangi wuxuu sheegay in ay jiraan laba war oo iskhilaafsan oo ku saabsan sababta dagaalka mid wuxuu sheegayaa in uu ka dhashay muran shakhsi ah oo ka dhacay maqaaxi halka warka kalena uu tilmaamay inuu ka dhashay jacayl saddex geesood ah wararku waxay taasi ku darayaan in labada sarkaal ay isku dhaceen kadib markii la ogaaday in labaduba ay jeclaayeen hal haweeney ah sarkaalkii taageersanaa Machar ayaa toogtay kii taageersanaa madaxweyne Salva Kiir halkaana waxaa ka dhalatay israsaaseeyeen labada ciidan ee ilaalada ahaa dagaalku wuxuu ku faafay suuqa kadibna wuxuu gaaray isgoysida iyo saldhigga ciidanka guud ahaan 14 askari ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen 6 taageersan ciidamada uu hogaamiyo Machar iyo 8 ka tirsan ciidamada dawladda Suudaanta Koonfureed ee Salva Kiir hal qof oo rayid ah ayaa la dhaawacay halka 5 kale oo askar ah oo ka tirsan labada dhinac iyagana la dhigay cisbitaalka afayeenku waxa intaasi uu ku daray in aysan jirin ujeedo dhanka siyaasadda ah laakiin arrintan lagu bilaabay baaritaan
hay-adda qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa bishii hore waxa ay ka digtay in suudaanta koonfureed mar kale qarka ay u saaran tahay dagaal sokeeye iyadoo sanadkan oo keliya 2,000 oo qof lagu dilay rabshado iyo qulqulatooyin ka dhacay waddankaasi. waa hagaag warkaas halkaas aynu kaga gudubno. markaan waxaynu eegaynaa dhankaas iyo ruushka. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa lagu soo warramayaa in uu sheegay in xalinta faylka nuclearka Iran lagu gaari karo oo kaliya waddo dhanka diblomaasiyadda iyo wadahadal, isagoo sheegay inuusan jirin bedel caqli gal ah oo taasi ka duwan. Putin oo hadal maanta ka jeediyay shirka ruushka iyo bartamaha Asia ayaa sheegay in dalkiisa uu sii wadi doono xiriirada dhow ee uu leeyahay Tehran, isla markaasna uu arko in Iran ay muujinayso go'aan cad oo ay ku doonayso xal dhanka diblomaasiyadda ah. madaxweynaha ruushka ayaa waxa intaasi ku daray in Moscow ay dareemayso rabitaanka Tehran ee ah in la helo xalal is-afgarad ah iyo in dib loo bilaabo iskaashi wax ku ool ah oo lala yeesho hay-adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA, isagoo xusay in wadahadalku uu yahay dariiqa kaliya ee lagu ilaalin karo xasiloonida gobolka lagana hortegi karo xiisad kasta oo la xiriirta barnaamijka nuclearka ee Iran. hadalka Putin ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisadda u dhaxaysa Iran iyo dalalka reer galbeedka ay sii xoogaysanayso kadib markii dalalka reer Yurub ee Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska ay dhabarka ka riixeen hanaanka cadaadiska ugu sarreeya ee ka dhanka Iran, kaasi oo dhaliyay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay Iran uu ku soo rogo cunaqabatayn. dalalkan ayaa Iran ku adkeeyay in ay dib u bilowdo wadahadallada ay leedahay Washington iyo in la dedejiyo nidaamka lagu hubinayo amniga kaydka uraniumka la bacrimiyey ee Iran. Iran ayaa shuruudahaasi ku tilmaamtay kuwo aan caqli gal ahayn oo cadaadis ah, isla markaasna aan cadaalad sal ku lahayn, waxaana ay ku adkaysatay in barnaamijkeeda nuclearka uu yahay mid nabadeed ah oo aan ahayn mid ciidan. waa tahay markan waxaynu u gudbaynaa bal xaggaas iyo wararka Maraykanka, gaar ahaan wararka la xiriira dagaalka Gaza, iyadoo ay noo soo socdaan warar kala duwan. hogaamiyaha Xamaas ee Gaza oo caawa hadal adag jeediyey, Israa'iilna waxay bilaabaysaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidankeeda kala soo baxayso qaybo ka mid ah Maraykanka Gaza. laakiin hadal uu jeediyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump goor dhaweyto waxa uu kaga hadlay heshiiskan iyo sida ay wax u socdaan. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in wadahadaladii socday maalmahan ay horseedeen heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Gaza, isagoo carabka ku adkeeyey in uu dhawaan u ababixi doono Bariga Dhexe. Trump wuxuu xaqiijiyey in isdhaafsiga maxaabiista u dhici doono Isniinta ama Talaadada soo socota, isagoo tilmaamay in xafladda saxiixidda ee rasmiga ah lagu qaban doono dalka Masar, waxaana uga mahad celiyey hogaamiyaasha Qatar, Masar iyo Turkiga kaalinta ay ka qaateen waxa uu ugu yeeray natiijo cajiib ah. Donald Trump ayaa ku nuuxnuuxsaday inuu rumaysan yahay in nabadda waarta oo laga gaaro Bariga Dhexe iminka ay tahay mid muuqata, isagoo intaasi ku daray in dhammaan dalalka gobolku ay doonayaan heshiis sida dalka u dhigay. waxa kale oo uu sheegay in ururka Xamaas dagaalka uu ku waayay ku dhawaad 70,000 oo qof, isagoo ku celiyey in dagaalkani uu dhamaanayo. laakiin Trump muusan caddayn 70,000 inuu ula jeedo dadka Falastiiniyiinta iyo inuu ula jeedo dagaalamayaasha Xamaas. waxaana leeyahay waa qalad inuu yiraahdo dadka Falastiiniyiinta waa Xamaas, maxaa yeelay waxaa loo arkaa arrintan inay tahay mid lagu banaysanayo dhibaatada lagu hayo dadka Falastiiniyiinta, iyo inuusan madaxweynaha Maraykanka kala saarayn dadka Falastiiniyiinta iyo Xamaas. aynu ku socono warbixinta. Trump ayaa waxa uu ballan qaaday in Gaza dib loo dhisi doono, isla markaasna dalal dhowr ah ay bixiyeen maalgelin ballaaran oo ah dib u dhiska. waxaase la yaab leh oo su'aal ay ka taagan tahay sababta Israa'iil oo burburkan u geysatay aysan u bixinayn qarashka dib u dhiska. Trump waxa kale uu sheegay in Xamaas hubka laga dhigi doono, isagoo raaciyay in marka hore maxaabiista la soo dayn doono, dibadna wuxuu yiri waxaad arki doontaan arrimo wanaagsan oo soo socda. waxaa jiri doona buu yiri Bariga Dhexe oo nabada, waxaan abuuri doonaa buu yiri Gaza cusub
oo dadku si wanaagsan ugu noolaan karaan marka laga hadlayo dowlad madax bannaan oo Falastiiniya Trump wuxuu sheegay inuusan mowqif rasmi ah imika ka lahayn arrinkaasi gaar ahaan xalka laba dowladood balse uu raaci doono wixii lagu heshiiyo dhinaca kale Trump wuxuu sheegay in weerarkii dhawaan lagu qaaday Iran uu ahaa mid muhiim ah isla markaasna qayb ka ah gaarista heshiiskana Gaza laakiin wuxuu intaasi ku daray in Tehran ay doonayso inay nabad qaadato isla markaasna ay la shaqayn doonaan waa si hadalka uu dhigaya inkastoo dadku dood badan ay ka keenayaan arrintan sida iskugu xiran tahay heshiiska xabajoojinta ee Gaza iyo dagaalkii lagu qaaday Iran Trump ayaa shir gudoominaya kulan golahiisa wasiirada ay lahaayeen oo lagu falanqeynayay heshiiska lagu suurtagelinayo isdhaafsiga maxaabiista qaybta koowaad ee qorshaha ballaaran ee Gaza kadib kulankaasi xogayaha amuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in bilo ka hor aysan muuqan wax heshiis ah oo lagu gaari karo imika waxa la gaaray waxaana uu tilmaamay in 20 maxbuus si nabad ah loo soo dayn doono isla markaasna ku dhawaad 2 sano markii ugu horeysay ay arki doonaan iftiinka waaya arrinta cajiibka laakiin waxay noqotay oo Falastiiniyiinta iyo qubrada hadal hayso madaxweynaha Mareykanka wuxuu ka hadlayaa oo kaliya maxaabiista Israa'iil ee la haysto dhowr iyo 10,000 oo Falastiiniin ayaa ku jira xabsiyada Israa'iil waxaana la sheegayaa inay ku jiraan qaar horey loo soo daayay heshiisyadii Xamaas dhex maray iyo Israa'iil marka waxa leeyahay sidee Mareykanku daacad uga noqon karaa qorshahan imika uu wado haddii dadkii Falastiiniyiinta oo carruurta ahaa oo la dilay uu ku tilmaamay Xamaas in laga dilay 70,000 ilmaha yarka oo caloosha hooyadiis ku jiray Xamaasba waa su'aalaha la isweydiinayo waxa kaloo dadka Mareykanka gudahooda ay ka hadlayaan dhibaatada dhaqaale ka jirta Mareykanka culayska ka jira dhowr maalmood waxa xiran hay'adihii dawladda kadib markii Congressku isku afgaran waayay miisaaniyadda waxay saameysay xitaa arrintan ciidamadii caadiga ah shaqaalihii goromada diyaaradaha xitaa kuwii hagayay diyaaradaha dabcan waddanka Mareykanka waad ka warqabtaan waa waddan aad u ballaaran boqolaal diyaarood baa hawada ku jira halkii daqiiqo marka waxa leeyahay madaxweynaha Mareykanka marka uu ku ordayo bariga dhexe aaway Mareykanka dantiisii aaway markuu lahaa mudnaanta koowaad Mareykanka leh ma Israa'iil badbaadinaya marka dadka Mareykanka su'aalahaas bay isweydiinayaan qubarada Mareykanka dadka shicibka caadiga ah idaacadaha ka hadlaya iyo xitaa baraha bulshada aynu arki doonaa wuxuu ku soo kordhay arrimahaasi goordha waxaan u gudbi doonaa Qaliil al-Hayya hogaamiyaha sare oo ka tirsan ururka Xamaas oo shir jaraa'id qabtay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka way noo soo socotaa oo ku saabsan warshad kanaacada samaysa waayab warshad kanaacada samaysa oo loogu talagalay in kanaacada bacrimiso ayaa la furay waxaan arki jirnay in lacag badan lagu bixiyo ka hortagga kanaacada laakiin kanaacadii baa la abuurayaa oo la samaynayaa sheekaas way noo soo socotaa laakiin markan waxaan eegaynaa xaggaasi wararka la xiriira Mareykanka Gaza iyadoo laga hadlayo nabad iyo xabad joojin iyo heshiis oo madaxweynaha Mareykanka uu leeyahay heshiis baa la gaaray Israa'iil wali weerar ay sii wadaa intaynu barnaamijkan soo gelin daqiiqada ka hor duqeyn baa ka dhacday Mareykanka Gaza haddaba aynu eegno war amuurahan la xiriira telefishinka Al Jazeera wariye ka tirsan ayaa soo sheegaya in dhowr duqeyn Israa'iil ay la beegsatay goobo ku yaal koonfurta galbeed ee magaalada Gaza waa bartamaha jiida Gaza waxa lagu soo waramayaa in kooxaha gurmadka ay sheegeen in 4 Falastiiniin la dilay halka 40 kale la la'yahay oo ay ku hoos jiraan burburka hoostiisa lana soo qofayo dadkaasi raq iyo ruux kadib markii guri ku yaal xaafadda Al-Sabra ee magaalada Gaza la duqeeyay hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay ka soo xigtay sarkaal military oo sheegaya in weerarkan uu amray abaanduulaha ciidanka Israa'iil isla markaasna la beegsaday waa sida loo dhigay guri ay ka socdeen dhaqdhaqaaqiyo ciidamada Israa'iil ay dusha kala socdeen telefishinka kana 12 ayaa isna waxa uu ka hadlayaa war ku saabsan in la isku afgaran waayay kulankii golaha wasiirada Israa'iil ay caawa lahaayeen isla markaasna kulanka uu baaqday waxaana la sheegayaa kulankan oo loogu codayn doono heshiiska xabad joojinta inuu dhici doono 10 subaxnimo xilliga Tel Aviv
arrintan ayaa waxaa lagu sheegayaa in ay tahay ismariwaha ku aadan codaynta wasiirada qaar ka mid ah sida wasiirka mayalka adag ee maaliyadda Bezalel Smotrich ayaa si cad u sheegay in uusan u codayn doonin heshiiska waxaana soo baxay warar kala duwan wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal ayaa waxa uu ka soo xigtay ilo xogagaal ah oo sheegaya in heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka Gaza uu dhaqan gali doono marka golaha xukuumadda Israa'iil uu ansixiyo dhinaca kale telefishinka Kanaal 13 Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu ka soo xigtay wasiirka amniga qaranka Israa'iil ee mayalka adag Itamar Ben-Gvir oo sheegaya in uu ku faraxsan yahay in la sii daayo dhammaan dadka la afduubtay sida uu yiri laakiin wuxuu yiri waxaan ka soo horjisan doonaa sii deynta wax uu ku tilmaamay dilayaasha oo wali jeeda maxaabiista Falastiiniyiinta wuxuu yiri Netanyahu wuxuu i ballan qaaday in la burburin doono Hamas haddii taasi ay dhicinna aniga burburin doono xukuumadda Netanyahu waaya qodobkaas marka laga gudbo Israa'iil waxay bilowday caawa ilaa iyo galabta ciidankeedii inay kala soo baxda qaybo ka mid ah maraykanka Gaza arrinta la yaabka laakiin waxay noqotay isla markiiba Hamas ba is abaabushay goobihii ciidanka Israa'iil ka baxeenna waxaa la sheegayaa inay la wareegi doonaan si buuxdana goobahaasi ay loo wareegi doonaan ilaa iyo maalinta Axadda ah haddaba sida halkan ku aragtaan waa ciidamadii Israa'iil oo taangiyadoodii iyo cagafyadoodii intay isku xirteen ka baxaya qaybo ka mid ah maraykanka Gaza warbixin uu qoray wargeyska iyo daco taxriinood ayaa waxaa lagu sheegay in cutubiyada saadka ee ciidanka Israa'iil ay bilaabeen inay ka baxaan magaalada Gaza galabta saacadan yar kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay in heshiis la gaaray iyo in qaybtii hore heshiiska isdhaafsiga maxaabiista la ansixiyay ka bixitaanka wuxuu ka bilowday ciidanka gaarka ah ee ka qaybta ahaa howlgalka gaadiidka Gideon 2 kuwaasi oo aan si buuxda u gaarin baa la yiri ujeedooyinkoodii dhanka militariga ciidamada Israa'iil ayaa haatan burburinaya saldhigyo waaweyn oo horey ay ka dhisteen maraykanka Gaza iyagoo dib ugu laabanaya dhulka Israa'iil kumanaan ka mid ah ciidamada kaydka ayaa la filayaa in la fasaxo toddobaadka soo socda qayb kale oo ka mid ah bixitaanka ayaa la qorsheynayaa iyadoo wararkan intaasi ay ku darayaan in markaa arrintan ay tahay arrin qayb ka ah qorshaha ka bixitaanka ciidamada saraakiisha militariga ayaa waxay qireen in ay adkaanayso in Israa'iil ay gacanta ku hayso guud ahaan maraykanka Gaza waxaana ay sheegeen tan inaysan ahayn mid macquul ah ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale waxa la sheegayaa inay ku jiraan heegan aad u sareeya waxaana ay ka baqayaan weerar gantaalaha iyo iskoorimaadyo ka yimaada dhanka xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta inta aysan dhaqan gelin xabad joojinta abaaduulaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir ayaa amray ciidamada inay u diyaar garoobaan xaalad kasta oo dhici karta iyo in ka bixitaanka lagu fuliyo si nidaamsan oo ammaan ah waaya dhankaas waa dhanka Israa'iil waxaa goordhow ta hadlay Qaliil al-Hayya haddaba aynu eegno warbixin arrintan ku aadan madaxa ururka Hamas ee Gaza Qaliil al-Hayya oo sidoo kalena ah madaxa ergada wada xaajoodka ayaa waxa uu xaqiijiyay in dhaqdhaqaaqa Hamas uu si mas'uuliyad sare leh u lafa guray ulana falgalay qorshaha uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas oo horseeday in lagu dhawaaqo heshiis xabad joojin ah oo lagu gaaray wadahadaladii ka socday magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar al-Hayya ayaa sheegay in Hamas ay soo bandhigtay qodob jawaab ah oo u ah danta shicibka Falastiiniyiinta una adeegaya dhiiggii ay markaasi daadanayay si looga hortago khudbad laga sii daayay telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in heshiiska la gaaray uu ka kooban yahay gelitaanka gargaarka maraykanka Gaza furitaanka isgoyska Rafah isweydaarsiga maxaabiista waxaa la filayaa buu yiri in 250 maxaabiista oo ku xukuman xabsi daa'im iyo 1700 oo maxaabiis kale ee la sii daayo waxay taasi uu ku daray in dhinacyada dhexaadinta iyo maamulka Mareykanku ay bixiyaan damaanad qaad rasmi ah oo ah in Israa'iil dagaalkan ay dib u bilaabi dooneen dagaalkan si buuxda oo u dhamaaday intii lagu jiray khudbadiisa Qaliil al-Hayya waxa uu mahad celiyay walaalaha dhexdhexaadiyaasha sida uu yiri ee Masar Qatar iyo Turkiga iyo dhammaan kuwa wuxuu inala wadaagay dhiigga iyo halganka dadkeena gaar ahaan Yemen Lubnaan Iraq iyo Iran isagoo sidoo kale
dadka xorriyadda jecel ee caalamka oo dhanna ammaanay una mahad celiyey wuxuu yidhi waxay nala garab istaageen taageero weyn sida kolonyada doonyaha ee u yimid buu yidhi xeebaha maraykanka Gaza in ay jabiyaan go'doominta taasna aysan suurto gelin laakiin wuxuu sheegay in ay tahay arrintaasi mid qalbiga ay ka ogsoon yihiin isla war arrimahan la xiriira Usaama Hamdan oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Xamaas ayaa isna waxa uu sheegay in aysan qorshaha ugu jirin waxa la yiraahdo inay hubka dhigaan wuxuu yiri ma jiro Falastiini aqbali doona in hubka laga qaado dadkan wuxuu yiri waxay u baahan yihiin hubkooda iyo in markaa arrintaasi ay u noqoto mid iska caabinta ay u adeegsadaan waayahay warkaasna halkaas aynu kaga gudubno waxaa lagu soo warramayaa in ergiga Mareykanka bariga dhexe Stephen Witkoff iyo wiilka sodogga uu yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee lagu magacaabo Jared Kushner ay soo gaareen caawa fiidkii Israel halkaasna waxaa la sheegayaa in ay kulamo la leeyihiin Netanyahu iyo xubnaha kale ee wasiirada Israel waayahay magaalada Tel Aviv waxaa ka socda banaanbax la leeyahay heshiiskan waa in la dhaqan geliyaa dagaal ma rabno annaga ciidanka laga soo saaray barika Gaza haddii maxaabiistaan aan helno Hamas ama ha joogto ama aysan joogin annaga shaqul kuma leeyahay dadka shicibka asaasi leeyihiin ha laga soo saaray meesha ciidanka leeyihiin waa tahay qodobkaasna halkaas aynu kaga gudubno imika waxaan u gudbaynaa sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka oo aynu aalaba ku soo qaadano sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen wax walba waa la arkay waxaan arki jirnay kaneeca la yiraahdo hal la buufiyo kaneeca la yiraahdo hal laga hortago laakiin waddanka Brazil waxaa laga furay warshadii ugu weyneed ee lagu bacriminayo kaneecada haddaba aynu eegno warbixintan dalka Brazil ayaa waxaa lagu soo warramayaa in warshadan loogu talagalay in lagu taro ama taranka kaneecada loogu talagalay taasi oo qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo cudurka dengaha loo yaqaan oo si xawli ugu faafaya waddankaasi warshadan waxay ku taal magaalada la yiraahdo Campinas ee gobolka São Paulo waxaana la sheegayaa inay awood u leedahay in ay soo saarto 190 milyan oo kaneeco toddobaadkii iyadoo la adeegsanayo farsamooyin casri ah oo markaasi ku aadan in deegaanka lagu badbaadiyo warshadan oo cabirkeedu uu ku fadhiyo 1300 oo mitir waa 1300 oo mitir oo laba jibaaran ayaa shaqaaluhu ka howlan yihiin inay hubiyaan in 100 milyan oo kaneeco ay heerka taranka u soo saaraan inkastoo ay muuqato arrintani mid markaa cabsi leh ama ay u muuqataba haddana waxaa leeyahay waxaa la xaqiijiyay in kaneecadan aysan ahayn mid faafisa cudurka maadaama lagu talaalay bakteeriyada loo yaqaan Wolbachia taas oo joojisa in fayraska dango la yiraahdo uu ku koro jirka marka kaneecadan ay taranto kaneecada kale uma sii gudbinayso ama kama qaadayso bakteeriyada laakiin waxay u gudbin kartaa talaalkii lagu talaalay taasna waxay keenaysaa baa la yiri kaneecadii kale ee duurka ku jirtay in markaa aysan halis lahayn oo cudurkii aysan qabin arrinta marka waxaa loogu talagalay in markaa lagaga hortago dhibaatada cudurkaasi ka dhasha qaniyada kaneecada waxaa kaloo leeyahay dalka Brazil 80% kiisaska ugu badan ee cudurkaasi ayaa laga diiwaan geliyay sanadkii 2024 habka wax soo saarka ayaa waxa uu ka bilaabanayaa boqolaal saxaradood oo biyo heer kul aad u sareeyo lagu haynayo kadibna waxaa la sheegayaa in lagu quudinayo kaneecada ukumaheeda halkaasi kadibna kaneecada halkaasi lagu tarankeeda lagu korinayo waxaana lagu soo warramayaa in arrintan ay tahay mid wasiidalka loo yiriye loogu talagalay in lagu soo saaro 190 milyan oo kaneeco ah halkii toddobaad halkaana u jeedaa marka warshadan aad arkaysaan gawaari lagu sameeyo raashin laguma sameeyo dhar laguma sameeyo laakiin kaneecadii baa lagu bacriminayaa wax walba waa la arkay
waayahay inta ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kasoo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir hadda ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa jimco wanaagsan nabadgelyo